وزارة dibadejinta Soomaaliland Saleebaan Axmed Ciise Xagle Toosiye oo dalka maanta dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay ujeedada socdaal ku tagay dalka Jamhuuriyadda Djibouti garoonka diyaaradaha madaarka magaalada Hargeysa oo wasiirka ay ku soo dhaweeyeen siyaasiyiin iskugu jira mucaarid iyo muxaafid ayaa waxa kamid ah hadaladiisii safarkan ku tagay Djibouti wuxuu ahaa safar shaqo waxaan u tagay inaan soo ogaado xaaladda ay ku leeyihiin qaxoontiga Soomaaliland oo Djibouti deganaa ama joogay muddo dheer oo sano hawlihii aan u tagnayna aad iyo aad bay loogu soo hagaageen waxaan mahad celinayaa dawladda Djibouti oo si wacan noo soo dhaweysay shaqadaana noo fududeysay intii aan ku dhex jiray wasiirku waxa uu si kulul beeniyay in isaga iyo madaxweynaha Soomaaliland uu soo kala dhaxgalay khilaaf isagoo sheegay warka warbaahinta qaar qoreen ee sheegay inuu iska casilay jagadii wasiirka wasaaradda dibadejinta ay tahay mid banaabura Xagle Toosiye ka hadlaya waxa uu yiri tan kale wax khilaaf iyo wax isafgarasho waayo anigii xukuumadda ama anigii madaxweynaha midna dhaxtaala ma jirto waa iska kuturkuteen siyaasiyiin ka mid ah Ali Sandulle iyo Fuad Cabbe oo jumhuriyadda ka hadlay waxay u mahad celiyeen dadkii soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda dibadejinta Soomaaliland